habarjeclo waa reer yar weeye, reer yar iyo ummad dhan oo qarana isma qaban karaan. annaga waxaan u dirirnay dagaalanay jabhadda argagixisada Islam oo yaa weeye isaaq oo haan ka maqan aanan jirin iyo huwantooda dir waqooyi samaroon kama maqnayn, ciise kama maqnayn. habarjeclo ugu sheegayo hawd kale niman axmed galaad la yiraahdo iyo weliba aan wada dhameen iyo niman khaalid la yiraahdo baa haddii alla ku kaga xaaji qaata. halkan waxa weeye la yiraahdo soona oogna niman jaamac siyaad la yiraahdo reer warsame la yiraahdo baygo goostaan. habarjeclo laydii sheegayo oo haan walba leh. soo dhawaada dhegeystayaal meel kasta oo joogtaan, warbixin guud baan idin siin doonaa insha allah xaaladihii ugu dambeeyey saasaanta colaadeed ee muuqata. waraaq ay soo qoreen soo baxsatay garamayno, laakiin waraaq ay isaaq intay isu tageen maqaal ay qoreen oo ay kaga hadlayaan dhulka SSC Khaatumo, gaar ahaan beesha dhulbahanta ay ku carabaabayaan. waraaqdaasina waxa ku duugan waan idin akhrin doonaa insha allahu taala. dhagaraha ku duugan iyo istiraatiijiyadda ay ciyaareen qodobkaasina waan dabcan waraaqda waa idin akhrin doonaa. inaad dhagaha u ruuxdaan oo dhagaha siisaan oo aad dhuuxdaanna waa doonaya insha allahu tacaala. jiidaha waxa ka jiran waxaan rabaa inaan fariin idinka siiyo. nimankan habarjecle ee maxamed abukor ee sulamadowna ee kasoo hanjabaya qorlugud dhexdeedana ee la dhulbahantaanu raadinaynaana jawaab baan siin doonaa insha allah. sii sheergareeya muuqaalka meeler ka tuura. horta nimankan hadlay waa maxamed abukor, waa habarjecle lagu yidhi. meesha kasoo hadlayaan waa qorlugud, baraayihii qorlugud wey. dhulbahanta markaa baraayaha qorlugud buu dhulbahanta joogaa. dhulbahanta deegaankiisa iyo halka ciidamadiisu fadhiyaan iyo kulli waa ogtihiine ma miidiyaha soo cambaxdaan oo aad qalasyadii koobigaraysaan oo aad habarjeclada banaanka dalka dibadda joogta aad lacagta kaga cuntaan baad halkaa usoo istaagteen. cabsi baa idinka yeersiinaysaa. waayanana soo weerarin wey. war nimankaa reer hawd waa istaqaanaan, taariikho badanna waa idinku dhigeen, dagaalo badan baad soo wada gasheen idinkoo huwana idinkoo haddii alla ku dadka deegaankaaba intaba iyagaa idinka gacan sareeyey, idinkana xaajo qaatay. qalas sida laguma koobi garan karo. qalaska iyagu waa dhintaa, waa dhaawacmaa. gacan hadduu qaadan haddii alla ku roya waxa gacantiisa u goyn karto ayuu soo goostaa. tvna kama hanjabo iyo arkayna ma dhaho ujeed bal fiiri ciidankaas mar kasta koobi ba wadaan. SSC Khaatumo way koobi gareeyeen, SSB bay dheheen. inkastoo annaga waan u naqaano suugiya saanad bilaasha. kuwan waxay maqleen qalas feedhi qaawan waa daawanayseen oltida soo feedhi qaawan dhulbahantaan raadinayna war sidan qalas laguma koobi garaayo. idinkuna waa idin jeedaayo BM iyo kaaray iyo haddii alla kuurayay suug 37 iyo qoryaha kale ayaad ku dul ciyaaraysaan. awoodeediina baleed mana qaadi kartaan. marka waxaan leeyahay masaakiin baa tihiin. waxa weye dadkan weliba nagu dhex noolaa oo masaakiina, waxa weye haddii aad caafimaadkii iyo nabadii xejin weydeen waa laydinka gubayaa. waxa idin karkarinaya waa laydinka gubayaa. kuwaas hadda hadlaya waa sulamada baa laygu yidhi. ariga iyo geeray xadi jireen markay baahi u dhintaan, markaasa dhulbahantu intay soo qabtaan ayay ku oran jireen war maxaad ariga iyo geel aad waxaasa u qalanaysaan. baahi baana haysay baahi markaasaa ari waxa wey hadii ari maal la siin jiray lagu qoynsa. masaakiin bay ahaayeen lagu dulnool. marka maanta in durbaan loo garaaco muusoo garaaco dee waxawey waxay ka dheefaan bin arki doonaa insha allahu tacaala. midna waa rabaa inaan soxo. inagu habarjeclo isma hayno. annaga haddaan reer SSC Khaatumo nahay habarjeclo isma qaban karaa. sababta waxa habarjeclo waa reer yar weeye, reer yar iyo ummad dhan oo qarana isma qaban karaan. annaga waxaan u dirirnay dagaalanay jabhadda argagixisada Islam oo yaa weeye isaaq oo haan ka maqan aanan jirin iyo huwantooda dir waqooyi samaroon kama maqnayn, ciise kama maqnayn. intaasaanu dirirna, intaasaanu weli dagaal ku wada jirnaa. laakiin reer habarjeclaa war anagu habarjeclaa ugu sheegayo hawd kale niman axmed galaad la yiraahdo iyo weliba aan wada dhameen iyo niman khaalid la yiraahdo baa haddii alla ku kaga xaaji qaata. halkan waxa weeye la yiraahdo soona oogna niman jaamac siyaad la yiraahdo reer warsame la yiraahdo baygo goostaan. habarjeclo laydii sheegayo oo haan walba leh. halkan kalena sanaagna meelaha iska soo gaaraan niman cali naaleya, weliba cali naaleya o dhan maaha, naaleya axmed oo dhan maaha, jifiye cali naaleya kamid a baygo goostaan.
marka isku title isku credit ma wanaynaa barjaclaano annagu ciddaan la diriirsannahay dagaalka la galay waa nidaamka khawaarijta ah ee argagixisada isana marka taa inaan saxo waa u baahanahay inta degan Caynaba iyo Qorlugudna annagu waxaan u aragnaa inay muwaadiniin heer isu qaatumo oo maamulkoodii dawladooda isu qaatumo iyo calankoodii ka falaagoobay iyagana insha Allah ta'ala xaqa way fahmi doonaan oo xaqa dib ugu soo laaban doonaan intaas waa intaas reeraha ayaa la isku soo dhisin yaan shawr Allah sabeen qodobka waa la intaas ku dhaafaya waxaan rabaa inaan ka warbixiyo xaaladihii ugu dambeeyay horta dagaal weyna daaweyne waana lama huraan nimankii jabhada argagixisada isna xoogaa bay meelaha ka keeneen oo ay soo dhoodhoobeen ciyaal yareero weligood aan xabad ridino dagaal garanayno haddii la kuuraya suuqyada Hargeysa Burco laga soo ururiyay ayuu doonay inuu xaba ku shubo waa loo diyaar garoobay diyaar baan loo yahay weliba la sugi maayo meel kasta oo isku urursanayaan meel kasta oo ay joogaan gacan baa loo tagayaa gacan baa loo tagay waana la burburinayaa qodobka harto qodob waxaa jirta xagga Qorlugud xoogaa carruur ay geeyeen xaggan bale Umar soono waxa weeye boqorkeenna xoogaa bay soo dhoodhoomeen salintana xoogaa bay soo dhoodhoomeen istaraatiijiyada Muuse bixi rabaa inaad ka warbixiyo Muuse wuxuu doonayaa dagaalka horta marka koowaad inuu hawta ka bilaabo wuxuu aaminay ciidankan culus ee fadhiya salinta boqorkeen ilaa iyo hadii la kuurayo dhulka la fogeene ciidanka culus inaan u baabacdi karin marka riwaayad baa jirto oo ay hadii la kuurayo iyo qoliyo waxa weeye u faaliya oo been iyo balaayo ugu faaliya ayaa waxay ku dhaheen meesha la yiraahdo Qorlugud xabada dagaalkan ku bilowno dagaalku halkaas marka lagu isku riiqmo sanaagna ka qarxiyo labada marka ay xabad ka qarxado ciidamada reer Sanaag iyo kuwa reer Buuhoodle reer Caymeed wuxuu aaminay baxayaan oo hadii la kuurayo ay nin walba deegaankiisa aadayo markaas wuxuu aaminay ciidanka meesha ku haray waa jiiri kartaa laakiin waxa meesha ka maqan oo aanu xisaabta ku darsan war dhul bahantii 100% uu ciidan yahay haddii dagaal ka dhaco hawdka iyo haddii sana ka dhaco inaan hal gaari salinta iyo boqorkeen dhulkaas iska baxayn sababtoo aan baahina loo qabinba oo ciidamo capacity-koodu sareeyo awoodoodu sareeyo inay goobaha furimaha hore ay diyaar ku yihiin taasoo xisaabta hawadii ku darsan waxa la sheegay in waxa weeye hadii la kuurayahay horgalkii nadalka ahaa wacalka ahaa horgalin cabaashe in loo dhiibayo abaanduulaha ciidamada jabhada khawaarijta argagixisada oo leeyahay dagaalka hogaami ninkaas hal ujeedo wataan maadaama dhulka aad u kala yaqaano inuu dhabarjimin sameeyo oo dhulka meelaha ka yaqaan dhabarjimin inuu sameeyo oo halka qodob bay wataan laakiin ilaahay fadligii ciidamada SSC way ka digtoon yihiin diyaar bay u yihiin waana u diyaar weey arbaan la leefsiinaya awoodooda maanta waan ognahay tiradoodana ognahay inta uu doonayno xaabada ku shubaan garanayna waa ishurannahay waan iswajahaynaa qodobkaas waa qodob inaga xageena aad iyo aad baxaaradu fiicanta aad baa loo diyaar garoobay wax dhulkeenaga yaala ma jirto waxa weeye hadii la kuuray waa kala reebtii ciidankeenu waa diyaar weeye askari kasto qalasa maanta alxamdulillah rabbil alamin diyaar buu yahay weliba ogaada askartu sidii hore maanta ma aha sidii hore waa ka sax jirsan yihiin xadkay soo xorayaan askari kasta waxa uu laabta ku haystaa in uu dhulka maqan yahay dhulkiisuna ama xadkiisu yahay labada gaataba maalinta aynu guuleysano waa inuu guusha hantano waa maalinta aynu tagno xadka labada gaataba marka taa ka warwarina inaga xaaladeynu 100% weey ciidan ahaan maamul ahaan wax kasta waa meelshii u wanaagsan balasa xadkeenu soo xorana xadkeenu tageynaa dadka ku nool Caynaba iyo Qorlugud ee khalday ee beenta walaahooda lagu sheekeeyay ee dawladooda hadii la kuuro yahay khaladka laga fahansiiyay iyagana waa dajinayna maamul dajin baynu sameyn doonaa dib u dajin baynu sameyn doonaa insha Allah ta'ala hay'adaha kala duwan ee nabadgelyada ee dawladda SSC qaatmo ayaa goobaha marka ciidamada ay gacanta ku dhigaan si toos ay uga hawlgeli doonaan insha Allah ilaahay idankii aan raba qodobkan si raaciyo qof waliba shaqadiisa qabsado dadka caafimaadka bartay diyaar ha ahaadaan ambalaashidu sidoo kale qurbo joogtu waxaan leeyahay boorka iska jafa
waa haddii alla kuuraya waynu cibaadaysanaynaa, xaqdirir baynu nahay, dalkeena dhulkeena difaacaynaa, ilahay idinkeena inaga insha allahu tacala guulaysanayna, waynu ku filannahay, aad baynu ugu filannahay. meelaha wuxuu soo dhodhoobay waa ogna. arrinta raba inaan xoojiyo waxa weeye aan carabaabo, nin la yiri daahir yaale kayn oo Samaroona baa la yidhi muuse la taliyaal u ah oo ku cadaadinayo dagaalka bilaabo. waa Samaroon markaan leeyahay Isaaq oo haan ka maqan aan lahayn iyo Gadabuursi iyo Ciise oo huwan u ayagana baa la socda oo markaas oo kale weeye. taasaa cadeen u ah. daahir yaale waa naqaana sirdoonka waagii dowladda siyaad barre bulaas aan joogi jiray, in iska maskiin oo dhulbahantaa ku dhex nool buu ahaa. waxaan rabaa inaan carabaabo ninka daahir yaalaha maanta sidaa u hadlaya ee muuse doonayo haddii la kuurayay caruurta inuu xaabada ku shubo. 91kii markii dowladda dhexe burburtay, shirarkii nabadeynta ka dhacay Berbera iyo Burco iyo Boorama, shirkii Berbera dhulbahante hal nin bay wadaan magana ahaa, halkaa ninna daahir yaale kayn buu ahaa. laascaanood baa lagu hayay, Isaaq baa laga ilaalinayay, magan isoo noo ah baanu Berbera geynay, Gadabuursigiisa ku wareegsinay, cidaanu ka ilaalinay Isaaq baheed. ninkii maganta noo ahaa ayaanu anigu ku hagowanay, ayaanu badbaadinay baa maanta muuse la dagaalka qaad, ninka ha soo aarsay daaya, xogtiisa dhan waa la soconaa. annaga dagaalkii maalintii dhoweed harti reerka la yiraahdo boqolkiiba 20 kama dagaalamin harti oo dhan. hadda ogaada waxa idinka adeegtay waa 20 waxaan dhameen. maanta se dagaalka waa soo wada galayaan. burco aynu isku waraysan doonaa, burco baynu isku waraysan doonaa. war dhulbahanta keligii oo jifi ah harti kamid ah baa 6 February ilaa 25 keligii dagaalamayay. wuxuu la dagaalamayay waa ciidan 3 sano la siiyey oo cid walba oo dir waqooyi oo dhana buu u baawac dhigay, buu hubna ka furtay, saraakiishii ka mariyay, cagta mariyay. maanta se isagoo quwadaha ugu waaweyn geeska Afrikana wallahi u daahimayno, waa isaga filannahay, hana loo togayo insha Allah. qodobka ugu dambeeya waxaan rabaa waraaq ay qoreen in aan idii akhriyo oo xogta iyaga dhexdooda laga helay. arrinta colaadaha lagaga hadlay waxay qoraalkani u dhignaa kow, maanta dhulbahanta ma joogo meesha aynu ugu talagalnay, taas oo aynu 33 sano ka hor ka tashanay. waxaa in muddaa socday shirar kala duwan oo dalka dibadiisa ay ka qayb galeen qoorweynta beesha reer Saxaaq kuna saabsan colaadda gobolka Sool. marka hore bishii May 91kii shirweynihii beesha Isaaq waqtigaasi waxaa ka soo baxay qodobada aynu ku gaarayno yoolkeena oo ah qaababka aynu ula dhaqmino beesha dhulbahante. qodobada in badan waynu ku guuleysanay, inna waynoo hadhimneed oo waqtiga ayaa kala sugayay. sawixii oo dhan waxaa isku jiray dagaal oo marnaba aynan filayn isbedelka yimid sidaa fudud ee wax u dhaceen. maadaama dhulbahante uu joogin meeshii shalay uu joogay, waxaa muhiim ah inaynu inagu qorshe cusub degno. markii aynu dhinacyo badan la fiiriyey, markii la eegay tala soo jeedinta odayaasha iyo aqoon-yahanada, markii la qiimeeyey qorshahayna soo socday sidii kusii socon lahaa, waxaa inoo soo baxay qodobada hoos ku xusan. waxaa ku waajiba dhammaan inay sida ay tahay u fusho. waaye qodobka koowaad, in halka xabadda iyo halka kale ee nabadda la iswado. waa in dhulbahanta riwaayadii been lagu kala sheekeeyo, weliba garaadadina la waco, la yiraahdo nabad baan wadnaa oo walaahowa waxba ka jirin. 2, in laga shaqeeyo tafaariiqda dhulbahanta dhexdiisana la dhex dhigo nooc kasta oo khilaafaada, siiba dagaal beeleedo. qodobkani wuxuu kamid ahaa qodobo hore arrintan ay ugu xilsaaran yihiin raggii hore arrimahan u qaabilsan, iyadoo laga xoojiyey rag badan oo khubaro ah. waana qodobo intii aynu joognay deegaanka ku caanamaalay. 3, in la soo dhaweeyo qof kastoo dhulbahanta ka soo jeeda oo dhaqmo sidii qorshaha inoo ahayd, maadaama maamulkoodu bilow yahay. 4, in la badiyo guurka in la badiyo wuxuu kamid yahay albaabada laga galo bulshooyinka. dhulbahanta 30 sano ee soo socda waa inuu noqdaa mid aynu dhalay, mid aynu abti u nahay, iyo mid xidid inala ah. dumarkooda qurbaha joogana waa inaynu guursanaa, maadaama dagaalka ugu adag inooga socdo qurbaha oo xagga dhaqaalaha. qodobkani wuxuu kamid yahaa qodobadii hore ee yoolku waa inaynu dhulka gaadhno, maamulkiisana aynu yeelano, jid kastoo loo mari karana aynu marno. arrinta guurka waa nimankan horena barnaamijka ku sheegay.
qof kastoo dhulbaanta way maqleen, gabadha kastoo dhulbaanta way maqlaysaa. waa inaga xaaraan guurka iyo door intii hore intaas ha inoogu ekaato. 5 dagaalka aynu dhulbaante la galnay maanta waxaa sabab u ah in dumarkoodu iyo dhallinyaradoodu waa inaynu ku sii daynaa nooc kastoo darooga ah, khamriga, jaadka, wixii la mid ah, xashishada. qodobka 6 in hubkooda sidii gacanteena usoo geli lahaa laga shaqeeyo inta ay ku jiraan gacanta qabiilada oo aysan gaadhin maamulkooda, oo aysan maamulku gacanta usu ka dhigin. hay'adaha sirdoonka qaranka barida weyn hawshaas ha dardargeliyo oo ha lagu caawiyo sida hawsha u hirgelin lahaa. qodobka 7 in ay fursad tahay oo aynu ku durki karayno dhulkooda maadaama ay guushii isa siiyeen. wasaaradda arrimaha gudaha ayaa arrintan gacanta ku haysa sida ugu dhaqsaha badan aynu u sugno dhammaan qorshayaasheena horay. waxaan xoojinaynaa ujeedka waxaa wiilkeena 20 jirka ah ugu dhimanaya dhulbahante way inoo caddahan, waana waxay ka toosano inoo dejiyeen aabayaasheen una baahan in aynu kamira dhalintooda iyo in badan. qodobadani waxaa isla gartay dhammaan ummadda reer Saxaar. waxaa lagu soo gabagabay waraaqdan iyadoo faahfaahsan waxay taallaa qasriga qaranka barida weyn guriga Moorgane. mahadsanid. arrintaasi waxaan idinku akhriyey nimankaasi qorshayaashooda inaynu ogaano oo aynu ka feejignaano. inaan shooraa u sameeyo oo la maqlo uma soo gelin ama buubuuniyo, laakiin maadaama platformkani uu yahay meel ummaddu ay wada dhegeysato in laga feejignaado. markii dagaalada inta soo dhicin baan barnaamijyadan afnugaal ka sideen jiray, qofkii garanaya baan ka hadli jiray guurka nimanka la iska ilaaliyo. gabadha ay guursan duruuf bay u galaan, dhulkan hadda ay degan yihiin iyo buurta maxaa looga soo dejiyey. marka taariikhda la fiiriyo waxaa looga soo dejiyey waa qodobka ah gabadh bay guursadeen, gabadhii baa 10 kasoo dejisay usoo dejinaysay baynu maanta halkaagi maranaa. anyway qodobka waxaan kusoo gabagabanaya hala digtoonaado. nimankaa guurinama dhex yaallo, wax inaga dhexeeya ma jirto. diinta islaamka ma inaga dhexayso, wax kaloo inaga dhexeeyo kale ma jirto. qodobka intaasaan kusoo gabagabanaya. waan laayay muuqaalkan sii shargareeya meel dheer ka tuura insha allah. wixii warbiximaha abdheedana insha allah wadila wadaagi doonaa insha allah.